أيا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان أيا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم فكن ما حييت ضنينا به فظنك بالوقت عين الكرم وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم ودع ما استطعت waxaan kaga hadli doonaa external style sheet maanta waxaan ka hadli doonaa external style sheet hadaba external style sheet intaan u gelin waxaan soo sheegnay css ka in css we use 3 different kinds of style sheet waxaan isticmaalnaa css ka 3 hab oo kala duwan oo style sheet marka habkan imka intii casharaanteeni oo dhan isticmaalnay waa internal waxa weeyaan isagoo head ka la dhaxgaliyo style la xiro la furo inta la furo hadana la xiro bartankiisa lagu qoro css ki ta ku xigta waxa weeyaan inline style sheet ka html kiba ku soo baratay waa imka p elementiga paragraphka oo la dhaxgaliyo style inta la yiraahdo widthkiisii colorkiisii la sheego ta saddexaad waxa weeyaan external style sheet hadaba internalka maxaan uga soo gudubnay oo aan externalka ku jeclaanay internalka hadaan sharaxno internalka hadaad page kaliya haysatid kaba soo qaad page kaliya haysataba oo html hadaad doonaysid page kaaga soo kaliya inaad style gareysid internal ba ayaa fiican laakiin externalka waxaan u baahanaa markay jiraan dhowr page oo html markay jiraan maxaan ku yiri dhowr page oo html waxa weeyaan page kastaba inay style u sameysid oo colorkiisa sheegtid weeyaan laakiin externalku wuxuu naga caawinayaa in keliyata haday yihiin kun page mar keliyata colorkooda wada bedeli kartid background colorkooda mar keliyata externalku intaas uu naga caawinaya way aan galna hadaba externalka sida loo qoriyo iyo sida loo sameysanayo waxa oo dhan casharkeeni hore intan buu noogu joogay oo style ilaa iyo intaasi style kaas ilaa la xiray ilaa inta laga furay oo halkaas intaas oo dhan waa internal intaas oo dhan waa maxay waa internal style sheet marka kaliya h1 tan iyo h2 gan waxa weeyaan waa h1 tan waa intan page keeno kaliya tan ugu jirta laakiin page kale h1 iyo h2 ku jirto colorkaasi lagama bedeli karo by b-daasi waa intan waa page keenan html laakiin hadaa doonaysid dhowr page waxaad isticmaalaysaa external style sheet hadaba internalkan iska baabino waa markii sida tahay codekeeni markuu sida yahay mid cusub baan sameeysanaa waxaana file new baan oranaa file new markaan idhaahno halkan baan ku save gareynaa Ctrl+S save markaan idhaahno meesha doonaysid geyso meeshii ay ku yaalayba kii hore oo kale marka hadaan documentiska css kaas halkan ayaan ku qoranaa style.css markaad style ama magaca doonaysid ku qoro waxa doonaysid ku qoro .css ugu dambeysay maxaan ku leeyahay .css ugu dambeysay way save marka tiraadid hadaba imka hadaan .css halkaas ma qalday .css marka fileku saas oo kale uu noqonaya hadaba markuu sida yahay waa inaan labadii file isku soo xidhnaa markaan web browserkii ku soo furnay saas uu noo noqday waayo html kii kaliya weeyaan css kii waan ka saarnay hadaba sidee baan u macaaneynaa intii hore dhan aan ugu soo dareynaa hadaba markii sidan noo tahay waxaan sameynaa intaa waa inaad inta sidee baan waa linki baan u sameynaayo file keeni kale imka kaba soo qaad
h1 taas ayaan odhanaa faylkeeni css kii baan tegaynaa waxaan odhanaa h1 style waxaa style inaad furtid oo haddana xidid looma baahna waxaa toos baad u gelaysaa waxaad doonaysaa h1 markaan sidaan idhaahno soo xidh colorkeedii baan bedelinaa ka dhigaynaaba grey waan xidhaynaa waan save garaynaa ma save garaynay black inuu wax iska bedelaan eegaynaa bahalkeeni inuu wax iska bedelo waxaan iska bedelin waayo dee linkigiiba faylkani ma garanayo faylkii kale aan sameynay style.css haddaba sidee baa looga xidhiidhaya waxaa la taa ka yar baa odhanaysaa link rel waa relationku waxa weeyaan waxaa odhanaysaa waa style sheet waxaa odhanaysaa href halkii bay taallaa waxaa odhanaysaa magaciisu ma sheegaysaa style.css hadduu folder ka horeeyo uu ku xigo kale imika css slash baa odhanaysaa oo kale hadduu folder ku dhex jiro imika sidan oo kale hadduu folder ku dhex jiro imika halkan oo kale imika kaas oo kale imika style kaas oo kale haddaan folder dhex gelino saas oo kale haddaan folder sida u dhex gelino aan idhaahno imika css oo kale aan idhaahno aan css kii folderka sida usii dhex gelino waxaan odhanaa mar dhow markaan isku xidhayno waxaan odhanaa href waxaan odhanaa css folderkaas ku jira folderka wuxuu markuu kusii jiro folderkaas magaciisuna waxa weeyaan style.css waad xidhaysaa markaa waad xidhaysaa waay sidaa moo xidhay waay aan eegna haddabaan save garayno aan dib ugu noqono eeg haddaba xidhaa waad arkaysaa grey bay isku bedeshay farti maxay isku bedeshay grey bay isku bedeshay haddaan imika nidhaahno aan sii socodsiino aan nidhaahno background color haddaan nidhaahno red ba ka dhig aan save garayno aan u nimaadno aan refresh garayno oo ka casaan buu noqday mar keliyata ayaad bedeli kartaa imika kaba soo qaad bidaasaa baan teginaa borigii may borigaa baan soo qaadanaa bori waxaa odhanaysaa bori backgroundka waxaad ka dhigtaaba green ka dhig fonty sizeka waxaad ka dhigtaa arial ka dhig font sizeka waxaan ujeedaa 520 pixel ka dhig fonty family waxaad ka dhigtaa arial waaye save garaynta markaad save garaysid refresh garee waad arkaysaa green fontigii waa ka isbedeshay 20 pixel oo taas marka koodkeeni maxaan style sheet kan uga baahanay kan maxaan uga baahanay waxaan uga baahanay bahalkii isma dhex geliyaan labadii koodkeeni html ki iyo css ki isma dhex geliyaan style sheet ka saas ku fiican hal linkigaas oo kaliya ama halka line ama koodkaas oo kaliya ayaa fayleskeeni iyo dhan faylkeeni intaas isagoo la soo qaaday waxaas wixii faylka stylekaas oo dhan ku dhex jira inta yar oo kaliya waxay ka dhigan tahay isagoo ay halka ku wada jirto dhan halkaas oo dhan iyada ku wada jirtay ka dhigan tahay marka clean bay noqonaysaa koodkeeni uu noo yaraanay oo de marka sida loo arko uu qurux badnaanaya laakiin wax fara badan marka la arko bida ay heshtaas oo files ku wada dhex jiray folder siyaxaas wade dadkii madaxiiba waa ku xanuunaya marka clean weyn aad buu marka u fiican yahay inaad external ka isticmaasho imka file kala haddaan abuuranaa nidhaahno new nidhaahno aan intii html keeni ku qorano html keeni haddaan ku qorano marka file cusub baan sameynay wax intaasaan ku dhex qoray intaa markaan ku dhex qoray waan save garaynaya markaan save gareeyo folder keeni halkeeni caadiga ahayd
ku save gareynaya halkeenii caadiga ahayd ayaan ku save gareynaya oo CSS kaas marka waxaan ku qoranaa lesson2.html save dheh marka linkigiina waan kusoo darnay wakaas haddaba eeg waxa dhaca eeg h1 taas ma aragtaa iyo bodiga waxoo dhan waa affect garaynaya imanka eeg lesson-keenii koowaad oo kaas faylkeenii koowaad lesson2 faylkeenii labaadna eeg markeliyaata oo kaas faylkeenii labaadna oo wada akhtar buu noqday casaan buu noqday marka halka intaasoo keliyaata dhowr page oo html saameynaysa marka external saas ku fiican. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.